kadib markii ay shaqadu soo dhamaatay waxa goobtaasi ka warbixiyay supervisorka shaqada Sakariya Cali Maxamed raxiim awalan ilaahay mahadle suuqan waxaan mahad celinayaa maayarka magaalada Maxamed Sheekh Ibrahim iyo goliisa deegaanka agaasimaha waaxda arrimaha bulshada gudoomiyaha xaafadayada iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay shaqadii maalinlaha ahayd nadaafada maalin kasta oo khamiis ah aanu ka hawlgeli jirnay annagoo ka soconna tiimkii shirkadda nadaafadda horseed waxaan maanta halkan isugu nimidnay ololihii khamiislaha ahaa oo aan maalin kasta oo khamiisa magaalada ka nadiifino taasi oo xil weyn naga saarayay hadafka shirkadda iyo hiigsigeeduna waxa weeyaan boorama bilicsan oo nadiifa ka shirkad horseed ahaan saawiyaan hadafkeegu waxaan u mahadnaqaynaa qof kasta oo nagala qayb qaata fariintii uu maamulka degmaduna farina waxaan jecelahay si boqolkiiba u fulino oo la shaqeyno mar walba oo aan la shaqeyn doono haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ugu dambeyn bulshada waxaan u sheegayaa kulay Soomaalidu waxa tiraahdaa intuu qashinku ku jiro ayuu cudurku ku jiraa marka qof kasta waxa ku waajiba inuu qashinka goobihiisa iyo goobaha lagu talagalay ku hayo baabuurta nadaafadda ee lagu talagalayna uu saaro goobaha qashinka loo aasteeyay oo dhigo inay ka daayaan meelahan qashinka la geenayo in maalin walba la keedanahay ee laga gorayo in laga daayo qof walba oo isxilqaamo bulshada intaasan u sheegina inuu qof walba baabuurka shirkadda ee uu imanaya uu saaro ayaan u sheegina aad mahadsantiin dhammaantiin waan mahadnaqaynaa aynu ka wada qayb qaadano nadaafadda magaaladeena iyo bilicda aynu ka wada shaqeyno gacmooda jir bay wax ku gooyaan qof kastooba inta ku dhow ee deegaankaaga haddaad hagaajiso oo nadiifiso magaaladu iyo wadanku wuxuu wada noqonayaa nadiif markaas qof kastooba insha Allah ka qayb qaado adiguna ku dadaal si aad maxaan ku radaa ula sugi lahayd u saari lahayd oo la yiraahdo aad mahadsantiin bulshaduna ka waantoodo qashinka ay meelaha dhigayaan ana la sugaan baabuurta shirkadda nadaafadda horseed